waxaan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada qodobkeena waxa aan ku eegi doonaa dagaal xoogan oo haatan laga cabsi qabo sidoo kalena ay la gilgilinayso magaalada Balad Xaawe ee gobolkaasi Gado. dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada ugu badan ayay geysay degmada Balad Xaawe maxay ka damacsan tahay barnaamijkeena ayaan kula fakuri doonaa sidoo kalena aan ku eegi doonaa ugu horeyn balse intaan barnaamijka gudaha u galin waxaan ka codsanahay hadii aad channelka subscribe ku weyn daawada inaad subscribe dhac ku siisid muuqaalka like saar share garee gaarsii saaxiibadaada aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wacan daawada mar kale soo dhawow magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gado ayaa mar kale waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya geysay ciidamadii ugu badnaa iyadoo halkaasi ku taabuleysa mudooyinkii ugu dambeeyay shalay iyo maanta ayaa la sheegayaa mar kale in dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo u daabushay magaalada Balad Xaawe ee dhacdo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya hase ahaatee waxay ugu baaqeen khilaaf xoogan oo ka dhashay mar kale la cabsi qaba in uu dhibaato u geysto dadkaasi sidoo kalena dagaalka ay ku dul dagaalamaan ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo digniin culus iyagoo sheegay in Balad Xaawe hadii aysan ka qaadin dhibaatada iyo sidoo kale culayska ay dowladda soo saareysa ay mar kale dowladda gacmaheeda ku dalbanaysa in dagaal Gado uu ka dhaco sidoo kalena la isku fara saaro ciidamada Jubbaland ayaa ereeyadaas iyagana ka dhago Gado ayaa noqotay goob lagu kala adkaan waay sidoo kalena meelba dhinac raacday iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay qayb ka haysato qaybna Jubbaland ayaa guud ahaan ay hoos tagtaa gobolkaasi Gado hase ahaatee maamul ahaan ma ogolo dad qaar iyo siyaasiyiin dowladda la socda ayaa jira maadaama Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya is waafaqsan sidoo kalena ay isdiidan yihiin khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo soo laabashadii doorashadii Axmed Madoobe kadib hase ahaatee wali waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya doonaysaa in ay Gado yeelato maamul ay dowladda soo magacaawday halka Axmed Madoobena uu rabo in ay Gado yeelato maamul uu Axmed Madoobe soo magacaabay laba maamul oo isdiidan ayaa Gado ka hirgasho Balad Xaawe Doolow iyo sidoo kale Garbaharre waxa ay noqdeen magaalooyin lagu hardamo oo dowladda iyo sidoo kale Jubbaland ay noqdeen laba dowladood oo barbartama hadba midkay doonana soo magacaabay iyadoo ay sababto mararka qaar dagaal xoogan iyo isku dhac sida Baardheer dagaalkii xoogan ee dhawaan ka dhacay u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan waxa ay ku eedeeyeen in ay horinayso colaadda ka socoto dowladda maamulkaasi Gado iyo sidoo kale guud ahaanba magaalada Balad Xaawe ay dowladda doonayso inay mar kale ciidamo halkaasi ku sii daabuleysana kuwa ay geysanay mar kale sababi doonaan dagaal xooggan oo ka dhaco iyagoo gacmaha ka qabtay dowladdan u sheegay in ay gacmaheeda holac u dooneen reegadan ay ogaay taariikhdii ay dowladda ugu dhigeen guud ahaanba Jubbaland dhoobleyn ay ogaayeen wixii ka dhacay jubbada hoose in dowladda 10 lama ilaawaan ciidamada loogu diray wiilal isku mid ah intii loogu diri lahaa sidoo kalena Soomaaliyeed ay isku dhameyn lahaayeen ay dhaheen xildhibaanadan dowladda ayaa dhow gacmaha ayaan ka haynaa holac gacmaheeda iyo dhimbil yayna ku careeyaan oo ha ka leexato maamulka Jubbaland iyo afaarihiisa gabi ahaanna Gado ciidamada ay ku daabuleysana ha iska dhaafto hase ahaatee wali dowladda dhagahaasi ma u furno oo waxa ay ciidamadii ugu badnaa abid geysay magaaladaas hase ahaatee wali dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku fara adeegaysay in gobolka Gado ay iyada ka taliso halka kuwa badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland ka hor imaasan oo dowladda ay u gacmatumayaan sidoo kalena ay u sacabtumayaan in ay Gado iyada galaangal xoogan ku yeelato halka aysan ka fikireen iska horimaadka ka imaan kara Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ay soo magacaawday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Balad Xaawe ee gobolkaasi Gado iyagoo inta badan sheego in ay halkaasi maamul fiican ka hirgeliyeen Gado wali ay caburan tahay maamulka Jubbaland ayaa dhinac ka haya halka dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso inuu ka shaqeeyo maamul iyada ay soo magacaawday waxa la yaab kale ayaa ahayd mudooyinkii ugu dambeeyay in gudoomiyaha gobolkaas gudoomiye ku xigeenka gobolka Gado uu ku safray Mootofeecom halka isagoo u socda Doolow sababtuna ay ahayd in aysan lahayn diyaarad magaaladaasi Garbaharre guud ahaanna ay xaniban tahay shacabkaasi ku dhaqan guud ahaan Gado ayaa ka cabta cunaqabataynta ay dowladda federaalka soo saartay iyadoo dhawaan ay u dhinteen dad ku dhintay qarax ku dhaawacmay ay biigbax u dhinteen sidoo kale ay waayeen dawo iyadoo magaalada Muqdisho loo soo qaadi lahaana la waayay diyaaradii lagu soo qaadi lahaa isqa qabsigaasi siyaasadeed ayay ku dhex dhinteen shacabka Gado oo wajahaya abaaro iyo sidoo kale colaado xoogan oo beeleed iyaga dhexdooda u dhaxeeya halka dowladda federaalka Soomaaliya ururka Al-Shabaab ay ku hardamayaan dhinacna Jubbaland iyo dowladda ay ku hardamayaan Gado ayaa noqotay meel xasaradeeda ay soo noqotay wali taagan tahay wali lama oga sababta iyo halka ay ku dambeeyay doonta hata ahaatee wali ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku sii daabuleysaa gobolkaasi Gado
ciidamo magaalada Berbahare iyo qaasatan magaalada Balad Xaawo ay dowladda xoogga saareysaa sidoo kalena ay doonaysaa inay halkaasi joogto lama oga sababta saacada Axmed Madoobe ayaa isagana isku soo daba diraya degniin u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya daawade intaas ayaan ku soo afmeeraynaa faahfaahinteennii iyo gobolka Gado haasaate ugu horeyn waxaan ka codsanayaa mar kale inaad channelka subscribe